dhiigga badan la daadinayo hal la joojiyo Soomaaliya waad maqashaa man malayn walaalaha hal noqdo hal iscafi halkan kama cafinayo qof kasto bini'aadmigi waa dambiile weey marka wixii gaf ah ama wixii qaladaad ah ee aan ka galay walaalaha muslimiinta ama qof kasto bini'aadmiba waxaan ka codsanayaa cafis waxaan u dirayaa cid kasta oo wax isku qabanay cafis waxaan ka codsanayaa inay cafiyaan ummadda qolo gaar ah mooyaane inta kale oo dhan waan iska cafinayaa qofkaana waxa iga tirsanaya waxaan dhiilaa walaalayaal aan iscafino aniguna waan cafiyay hana la yafiyo codsigay waxa weeyeen la yafiyo anna muslimiinta waan cafiyay idinkana waxaan ka codsanayaa inaad cafidaan marka waxaan leeyahay intii aragtay magacay iyo muuqay garanaysa wax iga tabansay walaalayaal cafiya saamaxnaakum yaa muslimiin maalmo kooban oo kaliya ayaa ka dhiman bilashada bishii barakaysneed ee Ramadaan bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaanu la qaadanaynaa maanta waqtigeena waxaan uga faa'iideysanaynaa barnaamijkani cafi walaalka barnaamijkani cafi walaalka oo noqon doona barnaamij aan joogteyn doono ayaa waxaan toddobaadkan fursad u siin doonaa bulshada kala duwan ee ku nool caasimadda deegaanka Soomaalida inay ka dalbadaan walaalahooda kale ay wax dhaxmareen ama ay jeclaysan lahaayeen inay halkan ka cafiyaan sidoo kale waxaan fursad u siin doonaa bulshada kala duwan ee caasimadda deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga inay halkan ka dalbadaan in la cafiyo aniga wallahi horta lil godob galmiyay ma garaysa inta badan axsaantii wanaaga oo jecelahay marka de golay waxaan xumaan oo galay ma jirtaa isleeyahay ma garaysan qaagi qofku xumaanayo aan ka rajaynayaa inuu cafiyo anigu hadduu doonana haysta bade aakhiro bal isla tagay oo la xisaabi ya walaalay waa wal cafinayaa laakiin qaar baa la cafilay wali markaana asxaan iyo wanaag sameeya muxsiniinta ee dadka khayrka u sameeyay ajri badan bay leeyihiin si gaarana nabigu calayhi salaatu wasalaam khayrkiisu bisha Ramadaan buu si laban jiray isagoo mar walba amalkiisu khayr ahaa sidaa darteed naftayda iyo naftiina anoo ka bilaabayo muslimiinta iyo dadka dhammaan cafiyaya ayana waxaan codsi u gudbinayaa inay iscafiyaan uguna diyaar garoobaan bisha Ramadaan qalbi nadiifa iyo weel la sii cugay oo la sii nadiifiyay oo qalbiga ah iyo isjacayl iyo inay iskaalmeeyaan oo qof walaalkii wuxuu ku dhaamo وبشر رمضان وقضى أنت أصلا نفتي ذي نفتي نودر دار ملا أنا قلنا عن عفيي أنا اللي عفيي عطسي وحوي اللي عفيي أنا مسلمين تنوان عفيي إذا كانوا عندك عطسي ناس عفيدان أنا قلنا وحنا وأدوم بان هاي غلطات بدن قلا مركها وحنا اللي أنت عرفتي مقع يموقع جرنسة وحقت تمنساي والله العفية سامحناكم يا مسلمين هلا اللي عفيو وحنا وديو ولا قلت يا وحلاص على آخر ميل أنا لسون قلنا بلاص على تم اللي عن سنة تضباط السنة وحبار بالملك كان هل يسعفيان إلى وأدوية ولا جوه تجيا أنا فهمت على سامحناكم منكي خلط إجا قلي أردن سامحناكم الله وحول بايقل بهاي بس أدوية العفية الربا أنت أسمع لقى الربا مركب واحد الربا إن يسعفنا وبيشن وحوي فاعفوا واصفحوا فاعفوا واصفحوا يسعفيا وحنا سيدي قفك من مركب عفيو وح إيمان السعيادة ندبتوا إنه جماعة إسلام سدان إيه وناق إيه خير aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa bisha Ramadaan markaan iska hadlo shakhsiyan already mar hore iska cafiyay waayo rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiiska waxa weeyaan qofkii saddex shub caloosha walaalkii uu ku hayay saddex maalmood uu ku dhinto qofkaas aanu naar weeyaan wallahi ani shakhsiyan ma garanayo qof amaanta niyadeyda ku jiro aan leeyahay qofkaas dhibaato igu sameeyay ma cafinin ma garanayo already بني آدم هاي قف واسقامي كرنا ما اسكت دعي كرنا نيتنا وكواين كرا لكن حلي قال لجوجو قف بني آدم قال لي مسل عدة دهنا عن نقطة النيت وح أوجه هاي عقدة أوجه هاي ما جرته عارف مسامح يجين ويجيني كرا ضد أنا مركا يوجه هايو يجينا وحكي عد صلاة ناس كي سامحان لا بدينا من ما فعلنا معنا أنا جو مصطفى كل بني آدم النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ قف كستوى بني آدم يجي ودنبيلوي marka wixii gaf ah ama wixii qaladaad ah ee aan ka galay walaalaha muslimiinta ama qof ka soo bini'aadmiba waxaan ka codsanayaa cafis musaamaxo aniga waxaan dadka aan u soo jeedinayaa dhammaan qof muslim ama qof bini'aadmi ah oo u hayay wax uqdada ma jirto aniga la cafi doonayaan in la wadaago guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida oo magacaygu yahay Guleed Yuusuf waxaan u dirayaa cid kasta oo wax isku qabanay cafis waxaan ka codsanayaa inay cafiyaan ummadda gaar ahaan waxaan ahay xubin ka mid ah maamulka magaalada Jigjiga hogaaminteeda shaqadayda ayaa la dhaleeli karaa
hogaaminimadayda ayaa wax laga sheegi karaa guud ahaan cid kasta oo igu gaftay iyo cid kasta oo runtii wax iga tabanaysana waxaan ka codsanayaa inay cafiyaan anagu waan idin cafiyey عقدته waxyaabaha ama dadku inay calooshiisu hayaan waxyaabaha waxay kamid tahay dadka aan cibaadaadkooda naaqsiya ma la aqbalin bay kamid tahay marka qof kastaaba qofka uu caqdada u hayo iska saamaxo aduu iska saamixi karayo kii dambi qof walaalkii ka galayna intuu u tago walaalkii ha ka xalaashado hayda war walaalo waxaasan ka galay ama waan ku xantay ha ka xalaashado si ay cibaadadiisu nadiif ugu noqoto waxa leeyahay bisha Ramadaan ee soo socota Allah khayr ha nagu gaarsiiyo inta bugtana Allah caafiyo inta caafimaad qaban Allah u siyaadiyo in la iscafiyo in jaarka loo ogaado waxa jira jaar aan afkaba saliidaysan oo nin walba haduu jaarkiisa ogaado waxa weeyaan waxa la yiri warnaarta soo dhiga baa la yiri timir jeexeedna ha noqotay wax soo dhiga baa marka nin walba in ninka walaalkii ogaado qaraabada la ogaado masaakiinta la ogaado taas aad iyo aad u khayr badan nin walbana inuu dadaalo oo amal saalix la yimaado dhammaan muslimiinta waxaan ka dalbanayaa maadaama ay soo galayso bishii barakaysayd bishii khayrka bishii in amal kasta laba loogu tala galay inay muslimiinta ay amalka laban ay amalka intii ay sameeyeen libilaabkii ay sameeyaan dhammaan muslimiintu ay cafiyaan anigana waxaan ka dalbanayaa bulshada wixii inay cafiyaan aniguna dhammaan wixii aan dib ka geysay inay waxaan ka dalbanayaa inay cafiyaan qofka aniga waxa iga tirsanaya waxaan dhiilaa walaalayaal aan iscafino oo waxa weeyaan hadii aad argoosi ahaan aad igula socotidna iimo iga argorso laakiin aan iscafino godasha nabadan aan qaadano inaan iscafino aan waxa weeyaan ayaan ugu baaqaya fadliga iyo soo dhaweynta bisha barakeysan ee Ramadaan adigani daawanaya yaad jeclaan lahayd inaad halkan ka cafido ku xidhnow lana wadaaga asxaabtaada faalladaadu waa muhiim Dagaaran Media waa saaxiibka dadweynaha